Sheekadani waxay ka dhacday magaalada Isfahaan ee dalka Iiraan. Waa magaalo hore oo caan ku ahayd quruxda naqshadeeda buluugga ah iyo farshaxanka. Waxay sheekadu dhacday xilli aad u fog. Magaaladan Isfahaan waxaa ku noolaa nin midabada sameeya oo dadku ugu yeeri jireen midab sameeyaha sharafta leh. Ninkaas midabka sameeya wuxuu si adag u shaqayn jiray maalintii oo dhan, wuxuuna shaqadaas ka heli jiray lacag fiican, taasoo uu ku daboolo baahida qoyskiisa, sidoo kalena wax ka kaydsado. Maalin maalmaha ka mid ah, suuqa magaalada waxaa yimid nin ganacsade ah oo iibiya qamadi. Wuxuuna ka yimid meel fog, tuulo aad uga fog magaalada Isfahaan ayuu ka yimid. Nasiib wanaag, ganacsadu wuxuu degay meel u dhow dukaanka ninka midabka sameeya. Waxay ahayd hodheer yar oo dadku degaan, sidaas darteed labada nin waxay noqdeen saaxiibo. Ganacsadu wuxuu u sheegay ninka midabka sameeya in uu ka yimid meel aad uga durugsan magaalada oo safar 7 maalmood ah ku yimid si uu halkan u keeno alaabtiisa. Inta saaxiibtinimadoodu sii kobcaysay, midab sameeyaha wuxuu si kal iyo laab ah ugu marti qaaday ganacsadaha inuu la dego gurigiisa. Sidaas darteed, ganacsaduhu maalintii wuxuu fariisan jiray dukaanka midab sameeyaha, habeenkiina wuxuu seexan jiray gurigiisa. Midab sameeyaha wuxuu ahaa nin aad u martisoor badan, wuxuu si wanaagsan u daryeelay ganacsadaha, isagoo ka xaqabtiray dhammaan baahiyihiisa. Ganacsaduhu wuxuu dhowr toddobaad si fiican ula noolaa ninka midabka rinjiga sameeya. Ugu dambeyn wuxuu aad uga mahadceliyay martisoorka uu ka helay. Ugu dambeyntii ganacsaduhu wuxuu rinji sameeyaha ku yiri, "Hadaad isiiso fursad aan kugu martisooro, runtii aad baan ugu farxi lahaa." Ganacsadihii wuxuu mar kale ku yiri rinji sameeyaha, "Way fiicnaan lahayd haddii aad adiga iyo xaaskaaga iyo carruurtaada marti ahaan iigu timaadaan." Midab sameeyaha wuxuu ku jawaabay, "Maxaa diidaya? Markastoo aan helo fursad, waxaan iman doonaa tuulada si aan ula kulmo saaxiibkayga qaaliga ah." Kadibna ganacsadihii wuu macsalaameeyay oo wuu baxay. Muddo kadib, ganacsadihii wuxuu mar kale yimid magaalada Isfahaan, waxaanu mar kale ka faa'iidaystay deeqsinimada iyo martisoorka midab sameeyaha. Markuu xoogaa joogay ayuu go'aansaday inuu tuuladiisa ku laabto. Mar kale ayuu martiqaad u fidiyey midab sameeyaha, wuxuuna ku marti qaaday tuuladiisa. Tani waxay noqotay wax soo noqnoqda. Markastoo yimaado, midab sameeyaha wuu marti sooraa. Ganacsaduhuna markasta wuxuu leeyahay, "Saaxiibow, goormaad noogu iman doontaa tuulada?" Ugu dambeyn, ganacsadihii reer miyiga ahaa wuxuu midab sameeyaha ku yiri, "Saaxiibow, ilaa goormeed i khiyaamaynaysaa oo marmarsiyo samaynaysaa? Maxaad u iman la'dahay tuulada? Waxaan rabaa inaan ku martisooro." Midab sameeyaha wuxuu ku jawaabay, "Runtii waan jeclahay inaan imaado, laakiin safarku ma sahlana. Qofku wuxuu la mid yahay dooni dabayshu wado, marba dhinac bay u kaxaysaa." Markaasuu ganacsadihii gacanta ka qabsaday rinji sameeyaha, wuxuuna ku yiri, "Saaxiibow, fadlan xaaskaaga iyo carruurtaadaba tuulada u soo kaxeey. Halkaas waxaad ku arkaysaan meel qurux badan. Waxaa lagu jiraa xilliga guga, dhulkii wuu cagaaran yahay, beerahana waxay noqdeen barwaaqo, carruurtaaduna way ku raaxaysan doonaan." Ganacsaduhu wuxuu yiri, "Ilaah baan kugu dhaarshay iga ballan qaad inaad iman doontid tuulada. Waxaan kaa codsanayaa inaad timaado, waan ku sugayaa." Kadibna wuu baxay. Maalmo kadib, carruurtii midab sameeyaha waxay ku yiraahdeen, "Aabbo, anagana waxaan rabnaa inaan aadno tuulada saaxiibkaaga. Bal eeg inta jeer ee uu kuu fidiyey martiqaad oo uu kaa baryay inaad u timaado." Midab sameeyaha wuxuu ugu jawaabay, "Carruurtayda, anigu runtii waan jeclahay inaan aado, laakiin dadkii hore waxay dhihi jireen, wanaagga dhabta ah waa mid aan abaal celin laga filayn. Haddii aan wanaag sameeyo anigoo filayo in wanaag kale la ii sameeyo, markaa waxaan jebinayaa hadalkii dadkii hore, taasina khasaare ayay ii keeni doontaa." Isagoo si hadlaya wuxuu yiri, "Dadkii hore waxay kale oo yiraahdeen, ka fogow qofka aad wanaag u samaysay si uusan dhib kuugu geysan." Laakiin carruurtu waxay ahaayeen kuwo aad u adeeg badan, wayna ku adkaysteen inay safarka rabaan. Ugu dambeyntiina midab sameeyaha wuu oggolaaday inuu tuulada aado. Qoyska midab sameeyaha wuxuu ka koobnaa xaaskiisa, gabadhiisa iyo wiilkiisa. Labada carruur waxay weli ahaayeen kuwo da'yar. Maalintii xigtay, midab sameeyaha sharafta badan wuxuu isku diyaariyey safarka, isagoo ay la socdaan xaaskiisa iyo carruurtiisa. Carruurtu aad bay ugu faraxsanaayeen fursaddan ay ugu bixi karaan safarka tuulada. Qoysku waxay u baxeen safar dhowr toddobaad ah. Maalin walba waxaa ku dhacayay cadceedda kulul, habeenkiina waxay daawan jireen xidigaha iyagoo sii wadanaya safarkooda. Kadib toddobaadyo safar ah, ugu dambeyntii midab sameeyaha iyo qoyskiisii waxay gaareen tuuladii uu deganaa ganacsadihii reer miyiga ahaa. Laakiin nasiib daro, markuu midab sameeyaha la kulmay ganacsaduhu wuu iska tiray, wuxuuna iska dhigay inuusan garanaynin. Midab sameeyaha aad buu ula yaabay, wuxuuna ku yiri, "Saaxiibow, miyaadan i garanayn? Aniga ah kii aad bilaha la joogtay."
dukaankaygan aad maalintii fadhiyi jirtay, habeenkiina gurigayga aad seexan jirtay. Ganacsadihii reer miyiga ahaa wuxuu isla markiiba iska dhigay nin diinta iyo cibaadada ku mashquulsan, wuxuuna yidhi, walaal, kuma aqaani adiga, anigu waxaan aad ugu mashquulsanahay cibaadada, ilaa heer aanan xitaa ogeyn waxa aan cunay maanta, neeftayda xaalkeeda xitaa ma ogi. Wuxuu markaa si degdeg ah uga baxay tuulada si uga cararo inuu martigeliyo midab sameeyaha iyo qoyskiisa. Midab sameeyaha isagoo weli rajaynaya wanaag, wuxuu dadka deegaanka weydiiyey meesha uu ku yaalo guriga saaxiibkiisii. Ugu dambeyn wuxuu guriga u yimid isagoo la socda qoyskiisa si uu u noqdo marti, balse dadkii guriga deganaa waxay si bareer ah u xireen albaabadii. Midab sameeyaha markaas aad buu u carooday, wuxuuna noqday mid caro iyo niyad jab la daalaa dhacaya. Laakiin xanaaqiisu waa mid aan waxba bedeli karin, wax walba way dhaceen. Si kastaba ha ahaatee, qalbigiisii weli wuxuu xambaarsanayay didiilo ah in saaxiibkiisu uu mar uun garan doono ama toobad keeni doono. Qoyska midab sameeyaha waxay 5 maalmood taagnaayeen bannaanka guriga ganacsadaha. Habeenkii waxay seexan jireen qabowga, maalintiina waxay ayagoo gaajaysan hoos fadhiyi jireen cadceedda. Waxaa markaas dhammaaday cunadii iyo lacagtii uu midab sameeyaha watay. Tanin waa waxa dhacda mar kasta oo dadka sharafta leh ay ku dhacaan gacanta baqaylka. Waxay la kulmaan dulinimo iyo ceeb. Sidaas ayaa ku dhacday midab sameeyaha sharafta leh. Mar walba uu arko saaxiibkiisii hore, si edeb leh ayuu uga daba tegi jiray oo salaan u diri jiray, isagoo isku daya inuu xusuusiyo saaxiibtinimadoodii hore, isagoo leh, anigu waxaan ahay midab sameeyaha, kaad la joogtay bilahaas oo dhan. Laakiin ganacsadihii wuxuu ku jawaabi jiray isagoo meel fog salaanta uga qaadaya, wuxuuna oran jiray, walaal, waan ka xumahay, kuma aqaani adiga. Ganacsadihii reer miyiga ahaa wuxuu sii watay howlihiisa, isagoo iska dhigaya nin cibaado ku mashquulsan, wuxuuna yidhi, walaal, waxaan aad ugu mashquulsanahay salaada iyo cibaadada, ilaa heer aanan garanayn inaan noolahay iyo in kale. Aniga xitaa ma ogi in aan jiro iyo in kale. Laakiin midab sameeyaha wuxuu yidhi, waqtigan wuxuu iila eg yahay maalinta qiyaame, waayo walaal ayaa walaalkiis ka cararaya markaas. Sidaas ayaa aniga igu dhacday. Wuxuu xasuusiyey martisoorkii uu sameeyey, wuxuuna ku yidhi, anigu waxaan ahay ninkii aad martida u ahayd, waxaad cuni jirtay cuntooyin kala duwan oo miiskayga dushiisa ayaan ku saari jiray, waxaad habeenkii seexan jirtay sariir raaxo leh, sidee hadda ii dhihi kartaa kuma aqaani? Laakiin ganacsadihii wuxuu ugu jawaabay si kulul, wuxuu yidhi, maxaad ku hadlaysaa? Ma garanayo adiga, mana garanayo wax martisoor ah oo aad ii samaysay, ha ii wareerinin. Mar kale ayay niyad jabeen midab sameeyaha iyo qoyskiisa. Habeenkaas roob xoog leh ayaa bilowday. Qoyskii maskiinka ahaa ee midab sameeyaha waxaa qoyay roobkii weynaa, iyadoo meel ay ka galaan aysan jirin. Midab sameeyaha markuu arkay xaaskiisa iyo carruurtiisa oo roobka iyo qabowga ku silcaya, wuxuu bilaabay inuu si xoog leh u garaaco albaabka ganacsadaha. Markii uu mid ka mid ah shaqaalaha albaabka furay, midab sameeyaha wuxuu ku yidhi, fadlan u yeer ninka guriga leh, waxa ay haysata dhibaato weyn. Midab sameeyaha wuu ooyey, wuu barooranayay. Ugu dambeyntii, ganacsadihii daalimka ahaa wuxuu yimid albaabka, wuxuuna si doqonnimo ah u yidhi, maxaad doonaysaa ugu dambeyn? Ninkii sharafta lahaa wuxuu ugu jawaabay, waan kaa cafiyey wax kasta oo martisoor ah, hana i martisoorin. Wax kastoon kaa filayay waan ka noqday imika, waan iska ilaabay. Laakiin fadlan, eeg xaalkayga, eeg carruurtayda iyo xaaskayga. 5 maalmood ayay qoraxda iyo qabowga ku silcayeen, waxayna u dhigmaan 5 sano. Haddana roobkan daran ayaa yimid, ma awoodo inaan arko iyagoo sidan u silcaya. Wuxuu si xanuun leh u yidhi, waxaan kaa baryayaa, haddii aadan gargaar ii samayn karin, adigana dil intii aan roobkan iyo qabowgan ku dhiman lahayn. Xataa dhiigayaga waan kuu cafiyey. Midab sameeyaha wuxuu sii waday baryadiisa isagoo leh, amana sii meel roobka aan kaga gabano, xataa meesha xoolaha kuu seexdaan ha noqotee. Ilaahay wuxuu ka abaalmarin doonaa maalinta qiyaame. Wuxuu intaa ku daray, waxaan kuu ballanqaadayaa in aan bilaabi doono inaan ku dawarsado tuuladiina, oo lacagta aan tuugsaday aan ururin doono, isla markaana beri aan ka tagi doono tuulada. Markaas ayuu midab sameeyaha bilaabay inuu si naxdin leh u ooyo. Ganacsadihii reer miyiga ahaa wuxuu ahaa mid qalbi adag, laakiin markii uu ka fikiray in midab sameeyaha beri tagi doono, wuu oggolaaday. Wuxuu yidhi, waa hagaag, halkaas waxaa degan ninka beerta ilaaliya. Caadiyan isaga ayaa habeenkii soo jeeda si uu xoolaha uga ilaaliyo duurjoogta, sida yeyda iyo waraabaha. Wuxuuna intaa ku daray, laakiin caawa ninka beerta ilaaliya wuu bukaa. Sidaas darteed haddii aad diyaar u tahay, waxaan ku siin doonaa qaanso iyo falaar, adigna waxaad ilaalin doontaa xoolaha iyo beerta. Haddii aad ogashahay inaad sidaas samayso, halkan habeen meesha waad ku hoyan kartaan, haddii kale meel kale raadi.
midab sameeyaha wuxuu ku jawaabay, maxaa diidaya mudane, waxaan diyaar u ahay inaan sameeyo 100 howlood oo tan ka adag, isii qaansada iyo falaaraha, caawa aniga ayaa ilaalin doona xoolahaaga iyo beertaada, haddii xitaa yii timaado, waxaan si toos ah falaar ugu dhufan doonaa madaxa. Ganacsadihii wuxuu yidhi, waa wax fiican, laakiin marka hore la hadal ninka beerta ilaaliya si uu kugu sheego xoolaha iyo meesha lagu hayo, waayo anigu waxaan si aad ah ku mashquulsanahay cibaadada Alle, xitaa ma ogi inta xoolo ee aan leeyahay. Markaas midab sameeyaha wuxuu qaatay qaansadii iyo falaarihii, wuxuuna qoyska ula hoyday meel ka mid ah beerta si ay habeenka roobka uga badbaadaan. Waxay degeen qol yar oo burbursan oo beerta ku yaala, kaasoo dhinacyadiisa ay roobka ka soo galaan. Midab sameeyaha ayaa carruurtiisa iyo xaaskiisa halkaas la galay, meesha aad bay ciriiri u ahayd oo xataa suurtagal ma ahayn in qof dhinac u dhaqaaqo. Roobkiina halkaas ayuu soo gaarayay, laakiin iyaga oo dhammi meesha ayay isku ciriiriyeen, midba midka kale ayuu dusha ka koray. Midab sameeyaha wuxuu qalbiga ka lahaa, Ilaahayow waxaan ogaaday in qofka saaxiib la noqda munaafiqa iyo midka wanaag u muujiya qof aan abaal aqoon in ciqaabtan aniga haysato uu mutaysan doono. Wuxuu haystaa qaanso iyo falaar, isagoo diyaar u ah inuu isdifaaco. Dhinaca kale, qolkii yaraa waxaa ka buuxay kaneeco iyo duqsiyo aad u badan, meel walbana way ka qaniineen, jirkoodana dhaawacyo ayaa soo gaaray. Markii dambe, jug ayuu ka maqlay geedaha hoostooda. Midab sameeyaha wuu fahmay in waqtigii uu falaarta tuuri lahaa yimid. Wuxuu diyaarsaday qaansadiisa. Markuu arkay dhaqdhaqaaq kale, si cajiib ah ayuu u toogtay, noolahaasna dhulka ayuu ku dhacay, isagoo aad u qaylinaya ayuu dhacay isagoo isla meeshiina ku dhintay. Ninkii reer miyiga ahaa markuu maqlay qaylada xoolahaas, si degdeg ah ayuu u yimid isagoo qaylinaya. Markuu yimid ayuu midab sameeyaha ku yidhi, ninka nacaska ahi wuxuu dilay arigaygii. Midab sameeyaha ayaa ku jawaabay, maya saaxiib, wuxuu ahayay meesha soo galay, wuxuu doonayay inuu na weeraro. Markaan fursad helay ayaan si toos ah u dilay. Ninkii reer miyiga ahaa ayaa yidhi, marnaba suurtagal ma ahan, waa hubaal inuu yahay arigaygii, wuu dhintay meesha ayuuna yaalaa. Ninkii sharafta lahaa wuxuu yidhi, haddaad iga shakisan tahay, soo eeg xayawaanka aan dilay. Habeenka madow wax si fiican looma arko, roobkana wuxuu ka dhigayaa habeenka mid aad u madow, waxaa suurtagal ah inaad ariga ku qaldaysid. Reer miyigii wuxuu yidhi, wax iskuma qaldi karo, waxaa laga yaabaa habeenka inuu adiga ku madow yahay, laakiin anigu si fiican ayaan u aqoonsan karaa codka arigaygii. Sidaas darteed habeenkan aniga ima aha mid mugdi ah, ee wuxuu ii yahay sida maalin ifaysa. Markaas ayaa ninkii martida ahaa xanaaqay oo aad u carooday, wuxuuna ninkii reer miyiga ahaa gacanta kaga qabtay qoorta kuna qayliyey. Wuxuuna yidhi, adigu waxaad tahay nin iska dhigaya mid daacad ah, waxaad igula dhaqantay khiyaano weyn, horteed waxaad isaga dhigaysay nin aan waxba garanayn oo sida qof daroogaysan u hadlaya. Haddaad codka arigaaga aqoonsan karto habeen madow oo roob daran socda, sidee markaas igu garan weyday aniga? Adigu waxaad noqotay nin daalim ah, waxaadna diiday inaad aqoonsato saaxiibkaaga aad 10 sano taqaanay. Waa ceeb, xitaa waxaad ilowday martisoorka. Waana ceeb inaad qof marti ku ah u gafto. Mar walba waxaad ku faani jirtay, anigu xitaa nafteedii kama warhayo, qalbigayguna Ilaah mooye cid kale kuma jiro. Xitaa waxaad tiri, waxaan cunay shalay ma xasuusto, hadda Ilaahay baa ku imtixaanay. Codka arigaaga ayaa ku fashiliyey, wuxuuna muujiyey inaad tahay beenaale xaasid ah. Qorshahaagii beenta ah iyo sheegashadaadii ahayd inaad cibaadada Alle ku mashquulsan tahay way burburtay, waxaana tahay khiyaanole aan bini'aadanimada aqoon. Ilaahay khiyaanada iyo beenta maalin wuu kashifi doonaa, sidaad hadda u fashilantay si la mid ah, wuuna uga argudi doonaa dadka ay khiyaanada ku sameeyeen ama ay dhibeen. Markii dadka tuuladu ay arkeen dhammaan wixii dhacay, dhammaantood way u cadhoodeen ninkii tuulada ka soo jeeday ee khiyaanada sameeyey, waxayna bilaabeen inay hadallo xun ku dhahaan. Dhammaan dadkii tuulada waxay ka xishoodeen ninkii martida ahaa, waxay bilaabeen inay raaligelin siiyaan. Maalintii xigtay, odayaasha tuulada ayaa go'aan ku gaaray in ninkii ganacsadaha ahaa ee beenta iyo khiyaanada sameeyey laga saaro tuulada. Sidaas darteed, waxay ninkii ganacsadaha ahaa ka saareen tuulada. Midab sameeyaha iyo qoyskiisii si nabadgelyo ah ayay ugu laabteen magaalada Isfahaan. Asxaabta, sidee bay idinla muuqatay qisadan? Fikirkiina ku reeba faalooyinka. Ha iloobin inaad subscribe saarto kanaalka. Aad baad ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalka. Ilaa kulankeena dambe, waxaan idin leeyahay nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.